Halkan waxaan ku soo gudbin doonaa 10 afkaar oo ka caawin kara qofka inuu noloshiisa bedelo. 1. Iska ilaali in aad ku noolaato waqti hore. Waxaa muhiim ah inaad horumarto oo aad ka shaqeyso mustaqbalkaaga halkii aad ku mashquuli lahayd khaladaadkaagii hore. 2. Guuldarradu waa qayb ka mid ah guusha. Haddii aad guuldarro la kulanto, ha u arkin inay tahay dhammaad, balse u arag inay tahay fursad wax laga barto iyo dariiq kale oo horumar ah. 3. Noloshaada mas'uuliyadda u qaado. Ma jirto qof ka mas'uul ah noloshaada marka laga reebo adiga fikirkaaga. Qof kale ayaa iga mas'uul ah, ma hogaamin doonaan horumar. 4. Naftaadu ma ogola inaad dib u dhacdo. Waa muhiim in aad qaadato go'aan, hana ka baqin in aad qaadato tallaabooyin cusub oo noloshaada horumar ku sameeya. 5. Haddii aad rabto inaad noloshaada beddesho, bilow hadda. Ha sugin waqti ku habboon ama xaalad ku habboon. Bilow marka ugu horreysa ee aad diyaar tahay. 6. Qof kasta wuxuu la kulmaa caqabado. Caadooyinka iyo fikirka ayaa go'aamin doona sida aad uga jawaabi doonto caqabadaas. 6. Qof kasta wuxuu la kulmaa caqabado. Caadooyinkaaga iyo fikirkaaga ayaa go'aamin doona sida aad uga jawaabi doonto caqabadaas. 7. Xoogga saar xiriirka dadka kale. Xiriirada caafimaadka qaba waxay dhisaan taageero iyo isbeddel wanaagsan oo noloshaada ah. 8. Isbeddel ma yimaado adigoon shaqayn. In aad rabto inaad noloshaada isbeddesho waa muhiim, laakiin waxay u baahan tahay dadaal, sabir iyo qorshe cad. Aqoontu waa furaha horumarka. Baro wax cusub si joogto ah. Soo kordhi aqoontaada. Inaad ka faa'iidaysto fursadaha waxbarasho waxay kuu horseedi karaan noloshaada oo wanaagsanaata. 10. Ka dhig dareenkaaga mid togan. Fikirkaaga iyo sidaad u aragto dunida waxay ku dhisan tahay xaaladaha aad la kulanto. Isku day inaad diiradda saarto dhinacyada wanaagsan ee noloshaada ah. Daawade, haddii aad qaadato fikradahan oo aad si joogto ah u shaqeyso, waxay si dhab ah u beddeli kartaa noloshaada. Haddaba daawade, adigu hal talo oo aan kaa faa'iidaysano aniga iyo saaxiibada kale ee muuqaalkan daawanaya, barta hoose ee kommentiga nagula wadaag si aan u kala faa'iidaysano. Haddaba saaxiibayaal, haddii aad halkan ila soo gaadhay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Muuqaalka like garee. Kanaalka haddii aad ku xidhneen ku soo biir. Barta hoose ee kommentigana waxaad noogu qortaa 10 fikradood midaad is leedahay way ku saameyn badan tahay.